Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale YouTube-ka Axmed Media. Waxaan wadnay cashiraanteenii ahaa barashada luqadda Ingiriiska, gaar ahaan qaybta vocabulary-ga ayaan wadnay. Kusoo dhawaada markaasi cashirkeena saddexaad. Waxaan rabnaa markaa inaan markana aan sharaxaad ka bixino, aan dulmar u samayno bal cashiradeenii hore, maadaama ka hadlaynay ereyada conflict-iga. Waxaa laga yaabaa qofka muuqaalka yara eegay inuu isleeyahay talow sidee cashirada loo dhigaya. Cashiradan waxaan ka hadlaynaa ereyada conflict-iga ama dagaalka iyo waxa ka hadlaya. Ereyada kani markaa waxaan ugu talagalnay qofku inuu ay ka haqabtiraan dhammaan ereyada yar ee qofka uu garanayo inay ka haqabtirto ereyo badan uu ka barto. Hal erey oo dagaal iyo waxaas tilmaamaya ayaan soo qaadanaa, dabeetana waxaan sheegnaa 4 erey iyo 5 erey oo la macnaa oo sentence ku jira iyo halkaa erey oo macal isagii sentenceyo badan ku jira. Intaa markaan soo qaadano qofku waxay u fududaynaysaa inuu wixii si fiican u fahmo. Haddaba ereygeenii u horreeyay soo qaadanay muuqaalkeenii koowaad wuxuu ahaa counterverse ayuu ahaa. Ereygaas marka sentenceyo isagoo ku jira ayaan soo maray. Ereygeena labaadi wuxuu ahaa waxaan ka wadaa ereyadii la midka ahaa baan sheegnay oo iyaguna maaragtay khilaaf uun tilmaamayay. Keliya haddaad garanaysid counterverse oo ereyadii kale aadan garanaynin, culays baad dareemaysaa markaad luqadii ku hadlaysid. So si ay kugu fududaato waxaa la mid ah ereygaasaan ku yidhi dispute, debate, uproar, conflict. 4taa erey baan ku siiyey macal iyagoo sentence-koodii ku jira. Qofka u baahan materialkana wuu iga helaya oo ila soo xiriiraya. Materialka aan isticmaalayan cashirka ka sharaxayo aniga u soo diraya haddii qofkaasi uu la soo xiriiro. Waxaa ereyga inoogu xigay uu ahaa altercation. Waa ereygeena labaad, altercation. Ereygan labaad markaa isagoo sentence ku jira ayaan sharaxnay isagana. Sidoo kale ereyada ereyga la midka ee iyaguna macal kuwii hore un la midka ah ee khilaafka iyaguna tilmaamaya. Waxa ugu horeeya argument waa khilaaf bay tilmaamaysaa, dood bay tilmaamaysaa. Quarrel dood bay tilmaamaysaa. Prowl dood bay tilmaamaysaa. Dood maaha khilaaf bay tilmaamaysaa. Clash khilaaf bay tilmaamaysaa. Intaba difference-iga yar yarka ee u dhexeeya haddaad u baahan tahay muuqaalkii labaad baad isagana soo daawanaysaa. Marka erayo ka soo horjeeda jira oo iyagu aan khilaaf tilmaamayn, sida ereygan u horeeya oo ah agreement, sida ereygan ku xiga oo ah harmony, ereygan ku xiga oo ah consensus, sida ereygan ku xiga oo ah unanimity, sida ereyga ku sii xiga ee 5aad ee ah conformity. Marka ereyadan difference yar yaraa u dhexeeya, laakiin dhammaantood waxay tilmaamaysaa wax heshiis laga yahay ayay tilmaamaysaa. Waana anigaasi calaamadaha ama signs-ka idin siiyey si aad ugu barataan. Okay, intaas waa dulmar labadii muuqaal ee hore casharadii aan ku qaadanay. Haddaad u baahan tahay muuqaalada soo daawo. Materialkan isticmaalaya haddaad u baahan tahay waad ila soo xiriiri karaysaa. Muuqaalkeena saddexaad maanta waxaan kaga hadlaynaa ereyga la yidhaahdo strife. Strife ereygan wuxuu ina leeyahay markaa strife-ku waa yahay aan la soo baxo tooliskii. Okay, ereygan strife markuu definition-kiisa inoo waxay wuxuu inagu yidhi waa conflict. Conflict waan garanaynaa. Conflict, struggle waxa weeyaan waa khilaaf ama struggle waa maaragtay khilaaf isu bedelay markaasi dee dagaal isu bedelay weeyaan. Trouble often prolonged or intensity wuxuu leeyahay markaa waa khilaaf muddo badan socday oo saameyn leh markaas. Wax markaa inay sample-ka balan kelino sample sentence-keeni waa kuwan. Sample sentence aan gelina marka ereygan oo ku jira political strife. Political strife waa maxay? The country waa ereyga loo isticmaalayo siyaasad. The country wadankii was torn apart by political strife. Wadankii waxa uu u kala go'ay qaybo ayuu u kala go'ay. Maxaa sababay markaa? Waxaa sababay wax la yidhaahdo waxa sababay waa maxay? With opposing factions or refusing to compromise. Wuxuu ina leeyahay nimankii mucaaradka ah ama xisbiyadii mucaaradka ahaa ayaa waxay diideen in xal dhexdhexaad ah la keeno. Heshiis in la gaadho ayay diideen. Saa darteed wadankii maxaa ku dhacay? Political
strife ayaa ku dhacay. Marka waxay ka dhigan tahay waa siyaasad yacni dagaal iyo khalkhal sababtay baa wadankii ku dhacday. Workplace strife iyadoo workplace bal goob shaqo loo isticmaalayo waxaa laynagu yiri markaa maxay bal muxuu inoo sheegayaa the constant competition waayahay for promotions led to strife within the office. Wuxuu ina leeyahay markaa tartanka u dhaxeeya maxaan ku idhaahdaa tartanka yacni joogtada ah ee lagu tartamayay promotionka ayaa wuxuu sababay strife khilaaf buu ka sababay within the office xafiiska dhexdiisa yacni shaqaaluhu madartay waa kuwan waxay inta badan lagu tartamaa waxyaabaha commissionada iyo promotionka iyo waxyaabahaasi la isa siiyo oo kale iyo bonuska ayaa lagu tartamaa si uu qof walba u helo and then marka dambe khilaaf bay sababtaa. Marka waa workplace ereygii oo jooga. Religious strife waa khilaaf diimeed oo kale ereygii oo ah haye the history of the region is marked by centuries of religious strife. Yacni taariikhda gobolka wuxuu caan ku yahay oo markaasi lagu yaqaanaa religious strife yacni dagaalo diimeed ayuu kale sida geeska Africa oo kale Soomaaliya iyo Ethiopia oo kale maadaama historygoodii oo dhan dagaalo diimeed uu salka ku hayay still uu ku hayo. Marital strife kana waxa weeye markaasi waa un dagaal dhanka qoyska ama reerka ama guurka ah. Marka dagaal de waa khilaaf bay noqonaysaa. The financial troubles often lead to marital strife. Wuxuu ina leeyahay yacni dhibaato dhanka financial maaliyadda ah oo qoyska haysatay baa inta badan dhibaatadaasi macnaha waxay sababtaa lead to marital strife inay reerku iskhilaafaan reerku islaayaan ayay inta badan ayay sababtaa. Okay, intaasi waa ereygii oo ku jira sentence ku jira weeyaan. Haddaan ka gudbo oo aan u gudbo ereygan strife ereyada la midka eeg waa khilaaf. Maxaad horey usoo baratay controversy ayaad horey usoo baratay oo ereyadii hore aan kusoo qaadanay xagga horaa ereyadii la midkaana waad soo baratay. Sidoo kale hadda waxaad qaadanaysaa ereygan altercation waad soo qaadatay oo muuqaalkeennii labaad ereyo badan oo lamidana waan kasoo hadalay. Strife oo isaguna khilaaf ah oo sentencesyadiisii ku jira ayaad halkaa igaga haysaa. Maxaa xiga? Waxaa ku xiga bal strifekan laftiisa erayo la macnaaha inaan ku siino ayaa kuugu xiga oo iyaguna khilaaf una oo la mid ah ereyadii hore ay isku mid yihiin. Okay, waa tahay ereyga u horeeya waa maxay ee ay isku mid yihiin strife oo khilaaf ah waa discord. Discord maxaa tahay disagreement or tension often leading to strife. Waxayna leeyihiin waa khilaaf iyo xaalad aan deganayn oo sababtay dagaal ama strife khilaaf weyn ka sababtay taas baa la yidhahdaa. Very good. Tusaalaha qabso markaa. Okay, tusaalaha qabso. Wow, inaga daa. Okay, away calaamadii masixitaankaan u baahanahay. So sorry, kii hore inagu dhegay. Sorry for that. Haddaan qabsanayna markaa. Marka muxuu inagu yiri sentence-ka horeeya ila eego. Sentence-ka horeeya wuxuu leeyahay there was growing discord in the team due to unfair treatment. Wuxuu ina leeyahay waxaa jira khilaaf isa soo taraya oo u dhexeeya teamiska shirkadda oo kale tusaale ahaan kaas oo ay sababtay unfair treatment hab u dhaqan aan cadaalad ahayn oo markaa shirkadda ka dhex jira. Marka waa fitna kicin teamkani way wada xanaaqsan yihiin fitna kicinayaan way dagaalamayaan. Marka ereygu waa khilaaf fitna kicin salka ku haya. Waayahay turmoil ereygan muxuu ka hadlayaa a state of confusion instability. Ereygan wuxuu tilmaamaya chaos. Wuxuu leeyahay state of confusion waa xaalad
aan maaragtay aan isdhexyaac xaalad isdhexyaac iyo deganaansho la'aan weeyaan. Marka wuxuuna leeyahay the sudden resignation of the CEO through the company into turmoil. Wuxuuna leeyahay yacni istiqaalada ku timiday ama xilka degista degdega ah ee ku timiday shirkadda CEO-geedi waxay shirkadda gelisay xaalad khilaaf ayay gelisay. Waxay gelisay xaalad aan deganayn ayay gelisay. Waayahay. Intaa marka ereyga saddexaad ee noo xigaan u gudbaynaa. Marka halkaa waa aniga kugu qoray isdhexyaac, xaalad isdhexyaac oo khilaaf ah ayay shirkaddii ayay gelisay. Waayahay. Feud waa prolonged quarrel wuxuuna leeyahay markaa waa quarrel waan soo maray. Waa khilaafka u dhexeeya dad isgaranayaan horey soo niri, horaan soo qaadanay. Marka wuxuuna leeyahay waa khilaaf muddo dheer soo socday oo often between families or groups. Khilaafkan wuxuu u dhexeeyaa familiga ama gurubyo wada shaqaynaya oo kale ayuu u dhexeeyaa. Waayahay. Xadgudub buu marka ereygu macnihiisu waa khilaaf ka yimid xadgudub saas oo kale noqonaysaa. Waxaan marka oranaynaa the Ahmed's family and Muhammad's family. Muhammad iyo Ahmed labadooda family had a farmers waxay leeyihiin markaa waxay lahaayeen oo ka dhexeeyay farmers feud yacni khilaaf caan ah ama khilaaf la wada og yahay that lasted kaasoo oo soo socday decades kaasoo soo socday boqolaal sano ama sannado soo socday decades sannado soo socday markaa. Rivalry waa maxay? Waa competition that can lead waba intaas waa muhiim. Waa khilaaf laakiin khilaafkan xaguu ka imanaya? Waa competition that can lead to conflict. Waa tartan maaragtay u gudbay ama sababay inuu khilaaf yimaado. Inta badan xisbiyada siyaasadda iyo waxyaabahaas oo kale iyo dadka ururada iyo marka dambe iskhilaafa laakiin marka hore wada shaqaynaya oo kale wey. Wuxuu markaa leeyahay the intense rivalry between the two sector teams. Yacni khilaafka saameynta leh ee u dhexeeya labada tiimasha u dhexeeya inta badan waa sector teams. Sometimes turned violent. Wuxuu marka dambe isu bedelaa xadgudub ayuu marka dambe isku bedelaa. Waa tartan marka dambe ay ka timaado xadgudub, gacan isu qaad, islayn ayuu marka dambe ka yimaado. Marka halkaa maxaad igaga haysaa? Disorder, turmoil, feud, rivalry. 1 2 3 4 erey wey halkan 4 weeyaan. Afartaa ereyba waa khilaaf laakiin mid walba dhinac bay taabanaysaa laakiin waa wada khilaaf. Haddaad aragtid markaa waa inaad la haysataa oo aad fahantaa oo ereyadan aad xifdidaa dabeetana aynan hadhow culays kugu noqonin markaad khilaaf ka hadlayso. Ereyada aad isticmaalayso si aadan uga dareemin ayuu waa inaad xifdidaa sentence-kii bay kugu jiraan macal sentence-koodana waa inaad iyagana xifdidaa. Intaan muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmaynana sidaas iyo nabadgelyo.